السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان با صحابتا qaaliga ee ku xidhan NMBT soo dhawaada haddaad nagu cusub tahay fadlan subscribe like comment share gambaleelkana fura majliska saad u taqaanid soo dhawow mar walba ku soo dhaweynaynaa asxaabteedii hore iyo kuwa dambaba asxaabta cusub ee nagu soo biirtayna aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa maanta waxaan idin wadnaa cuntooyin aan soo turjunay sidii ayaamihii dhaweyd aan idin sheegan idinku yidhi cuntooyin aan daawado anigu oo af carabi ku baxaya ayaan doonayaa inaan idin soo turjumo insha Allah waxaan uga dan leeyahay qofkii aan fahmayn luqadda carabiga si uu u fahmo waxyaabaha ay ku dardarayaan iyo waxaas kii fahmaya isagu waa fahmaya ilaahay u siyaadiyay kii kale si uu uga faa'iideysan karo waayo waxaan arkay hablo badan oo daawado ka odhanaya maasha Allah cuntada waan jecelahay laakiin waxa ay ku darayso qofkaasi ama uu ku darayo qofka carabka ma aan fahmin marka waa wax wada fudud oo wadankeena laga helayo meel walba laga helayo u baahan in lagu turjumo fahantiid uun marka taas uma uga dan leeyahay ana khalad loo fahmin aniga sameeyay uga ma jeedo imika dadka qaar baa u qaadan doona inaan leenahay naga sameeynay ma anagu maan sameyn laakiin dad sameeya anagu aan ku xidhanahay daawanay baan ka soo turjunay ugulana tala galnay bisha barakeysan ee Rabadaanta inaynu ka faa'iideysano maadaama cuntooyin kala duwan qof kastaba inuu sameeyo doonayo ama cunto hore aan uu sameeyo soo dhawaada saxaabi haddaba waxaan isleeyaynaa roodhidan ay gabadheena tusayso ama fadayrkan say u samaysay saad u taqaanidba waa wax aad u fudud oo qof walba sameyn karayo markaad fahantid waxay ku shubtay koob caana ama kubaayad caana waxa kale ku dartay laba malqacdood oo khamiira ama fixisada burburan laba malqacdood oo sonkor ama sonkor kadib intaas ay si fiican isku walaaqaysaa haddaad doonto waxaad ku shubi kartaa mashiinka lagu ridqo cabitaanada si fiican kugu ridqanto intaa markii si fiican isku dhex geliso way daboolaysaa 5 daqiiqo fixisada rabtaa inay soo kacdo waxay ku daraysaa haaf saliida kubaayada caana ay ku qiyaastay haafkeedu saliida waxay ku dartaa kala subda ama subagan fadhiya lagu daro keegaga waxa kale ku dartay xabad beeda inteedii cadeed intii caseed way ka reebtay inta cad oo kaliya kadib si fiican bay isku dhex gelin doontaa way doonaysaa inay isku dhex gasho waxa kale ku dartay koob daqiiqa qado daqiiqda inta doontaad ka dhigan kartaa oo badsan kartaa malqacad uu wax lagu cabirto ugu yar oo milixa kadib intaasay soo xashaysaa si fiican soo xashaysaa markii soo xashto isa soo dhex gasho sida soo baxay in arkayna insha Allah wata daqiiqadeedii saasay soo baxday gacantaad isticmaali kartaa dad doonto mashiin baad ku xashan kartaa haddana way daboolaysaa nus saac ilaa 30 daqiiqo meelahaas saas uu soo baxay ma sha Allah wuu faxay si fiican hadda way gogoyn doontaa way sii dhex gelinaysaa yar soo soo ururta daqiiqdu kadib markaa waxaad ka dhigaysaa intaad adigu doontid laakiin iyadu 4 qaybood bay ka dhigi doontaa 4 qaybood kadib haddana sanbay u sii yareeysay waa intay ugu tala gashay xabada roodhida marka saa u duubto haddana waxaad sameyn doontaa way daboolaysaa 15 daqiiqo ayaa daboolaysaa waxay rabtaa inay si fiican ugu faxdo soo kacdo haddaba waa tan waa diyaar hadda joogna isku soo darsatay inama tusin laakiin muhiim ah waxa dhex gelinaysa waxa la waxay doonto ay dhex gashan doonta kartaa duqad bad dhex gelin kartaa kalluun bad dhex gelin kartaa joogna dhex gashan kartaa ay shay aad doonaysid oo jeceshahay bad roodhidan dhex gashan kartaa dad doontid mozzarella cheese yar bad dhex gelin kartaa cheese kan lagu daro cuntooyinka adigu waxaad ikhtiyaarto saas u diyaar ku yahay in dibtum baa harsan insha Allah dusha waxay ka marinaysaa waa beed waxay ku shubtay xabasuud iyo xabasuud yar bay ku sharaxanaysaa waxa la waxaad doontaa dushan ku sharaxi kartaa laakiin xabasuuda iyo sisinta ayuu ku qurux badan tahay roodhidu labadaba ku dartay iyadu furinkii markuu uga soo baxay oo finkiisaas soo baxay ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah جلاع قروح ويسود الليجي حتى ما شاء الله ما شاء الله إليك عنتي ذا وبركة يوسد دعية قبل أن دوين كبرنا إننا نقولنا ما شاء الله
waa waxaad u dhib yar afur ka samaysan kartid, wax walba ka samaysan kartid. Cuntadeennii labaadna waa tan, aad bay u qurux badan tahay, waana cunto indhaha soo jiidanaysa marka la sameynayna aad bay u fududahay, waana cunto qurux badan oo indhaha u roon. Marka waxaa lagu sameynayaa khubus iyo duqad ama hilib shiidan sidaad u taqaanid. Marka halkan daawaha maqlaha waxay kusoo shubatay googosatay basal iyo saliid, dabka saartay, waxay ku dartay basashiin xoog buu casaanin hilibkii shiidnaa. Marka intan bay isla soo bislayn doontaa insha Allah. Waxay rabtaa inuu intaas iskugu bislaato, say isla soo baxdana waad arki doontaa. Anu aad baan uga helay, waana cunto fudud. Intaa markay sidaas kusoo dhex usoo bislaysay, waxay ku dartay kaaro jasar yar isoo kaaro ay soo jarjartay. Waxa kale ku dari doontaa xabuub ay soo jarjartay, ma badna xabuubtu dheriga hilibka biyo ka dhigtaa, yani biyo dhashaa. waxay ku dartay xawaashiyaadkeedii iyadoo ay soo deertay. Xawaashku khasab maaha in xabad loo ogaado, qof walba wuxuu jecel yahay ku darsadaa isagoo xawaashida cajibiya. waxay ku dartay xabad qasaac oo dhammaystiran, qasaacda yare xidhan ayay ku dartay kartoonkii oo dhan. intaasay si fiican isku dhex gelinaysaa. waxay halkana soo saaratay subdad, 2 jeex oo subdad ay soo goosatay, 2 malqacdood oo daqiiqa, dabka isla saaraysaa oo 2 malqacdood oo daqiiqa si fiican bay walaaqi doontaa. waxay ku daraysaa kala caano. intaa markay dabka isdhex galaan ay saa usoo baxaan, waa subagii subdadii iyo daqiiqdii kaliya weli. waxay ku daraysaa, waan isla eegaynaa, suga caanay ku dartay. qiyaastaada intii adiga kugu filan baad ka dhigaysaa, laakiin subagu in yar oo qaadi kara in baad caanaha ku darsaa. caano badan oo buuxa kuma daraysid. waa kaas, waxay ka dhiganaysaa soostii u kala dhexaysiinaysay hadhitoole cuntada iskugu dhajin lahayd. adaygaasay soo baxayaan daqiiqdii markay bislaato iyo subagii iyo caanihii. waxay soo qadatay daawa maqligan, waxay ku shubtay sooskii soo diyaarsatay cadda, daqiiqdii kasoo samaysay subdadii caanaha, si fiican bay u wada gaadhsiisay. waxay ku ridaysaa khubustii aan idiin sheegay. khubusta inamay tusin sida u sameynayso, khubusta oo diyaarsan tahay. waxay saaraysaa duqadii oo bisil ay soo dhammaystirtay. saasay wada gaadhsiinaysaa xabadda khubusta duqada. markay wada gaadhsiiso xabad kale khubusay saaraysaa, ku daboolaysaa. haddana balaynu eegno. haddana waxay ku shubtay soostii intan ay soo diyaarsatay u kala dhexdhexaysiinaysaa. markay ku shubtay taa, haddana duqadii bay ku shubtay. duqadii si fiican bay wada gaadhsiinaysaa, waana duqad ku filan. waxa kale saartay xabad kale oo khubusay ku dabooshay, haddana sidii sileeg bay sameynaysaa. aad bay u fududahay runtii. dushana mozzarella cheese bay ka saartay xabadii u dambeysay. ofinkay gelinaysaa. haddaba ofinkii markay uga soo baxday sidan bay soo baxday, maasha Allah. bal markay jarjartayno eegnasay soo baxday quruxda wataa. waa kaas, markay soo jartay waa 4 dabaq bay u noqotay. waxa u kala dhexdhexeeyay hilibkii iyo sooskii ay samaysay. maasha Allah, qurux bay usoo baxday, qurux. marka waa cunto aad u fudud oo u baahan in loo yaro fiirsado. qof walbana samayn karaya, afurkay ku fiican tahay.